yaala iyaduna baycadii aynu hore usoo maray ansaartu ay nebiga la gashay calayhi salaatu wasalaam waxay ku salaysnayd inay magaalada nebiga ku ilaaliyaan. laakiin dee dabadda haddii loo baxayo halkaasi kumay bunuudeeda kumay jirin khaarij almadiina. sidaa awgeed ba waxaa la yidhahaa ciidamadii yaraaye hore ee beder ka horreeye gaade uu nebigu diray oo dhami muhaajiriin bay ahaan jireen, oo qoladan uu quraysh u dire inay ciidamadoodi iyo waxooda laga horgeynayo o dhami muhaajiriin bay ahayd. haatanna waa ciidan tiro badan baa meesha maraya oo ansaari u tiro badantay. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday in abu sufyaan iyo xoolihiisii tageen, waxa la ishayaana ay tahay quraysh iyo ciidankeedii. ciidankan wuxuu kusoo kaxeeyeyna inay ahayd quraysh xoolaheeda in lasoo qabto. arrinkiina in wax ka bedeleen ayuu nebigu wuxuu la shiray markaa saxaabadii ashiiru calaya buu ku celiyey. haddaynu qaadano riwaayada khabarka ibnu isxaaq ee sanadka saxiixa kusoo aroray, wuxuu leeyahy dadkii buu nebigu la tashaday calayhi salaatu wasalaam. dabeetana abubakr sidiiq baa hadlay, si fiican buu u hadlay. dabeetana cumar baa hadlay, si fiican buu u hadlay. waxaa ka daba istaagay almiqdaad ibnu camr oo isna saxaabi muhaajiriinta ka tirsanaa alkindiy. wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow imdi lima araaka allahu fanaxnu macak, ku soco wixii alla ku faray ama waxa alla ku tusiyo subxaana wa tacaala ku soco, aniguna macaaga ayaan nahay. ku odhan mayna buu yidhi sidii reer banu israa'iil ay nebi muuse ku yidhaahdeen idhab anta warabuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun. kuma rihin buu yidhi sidii ay reer banu israa'iil markay hoojiyeen nebigoodii ay ku yidhaahdeen baytulmaqdis markuu dagaal tegayey, nebi muuse adiga iyo rabbigaa dagaal gala, annagu waa idinsii sugaynaa intaad meesha furanayseen. sidaa kuma odhanayna buu yidhi, ee waxaanu ku leenahay buu yidhi idhab anta warabuka faqaatila inaa macakuma muqaatiluun. ilaahay rasuulkiisiiyo adiga iyo rabbigaaba dagaal galaanana waa idinla dagaal galaynaa. ilaaha xaqa kugu soo saaraan ku dhaartee buu yidhi haddii aad naga kaxayso ilaa barkilrimaad, yani meel fog buu markaa ujeedaa, lajaaladnaa macaka min duni xataa tabluga, waa kula diriraynaa ilaa iyo inta aynu ka gaadhayno, yani marnaba kaa hadhi mayno. nebigu calayhi salaatu wasalaam saddexdaas saxaabi ee muhaajiriintii markay si fiican u hadleen wuu u duceeyey. markuu u duceeyey ayuu wuxuu haddana nebigu ku celiyey weedhi ashiiru calaya ayuha nnaas, dadow ila taliyo waxi dhaha ayuu nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam. iyadoo ay ka muuqato nebigu muhaajiriinta mooyaane farafka kale ra'yigoodana inuu weli raadinayo, bal ansaari waxay yeeshay iyaduna. waayo ansaar baana tirada u badnayd meesha maraysa oo 200 iyo dheeraad laga yaabo inay haayeen. isla markaana baycadii ay la galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam kumay jirin qadiyada tani. yaa rasuula allahi bay markaa ansaar yidhaahdeen inaa buraa. waxay hore ugu sheegeen oo ku jirtay baa la yidhahdaa heshiiskii ay nebiga la galeen ilaahay rasuulkiisiiyo beri baanu ka nahay, yani ilaalintaada inta aad naga soo gaadhaysaa markii hore heshiis ku jiray. oo madiina yani markaad timaado ayaanu ku difaacina, faidaa wasalta ilayna faanta fi dimatina namnacukum maa namnacu minhu abna'ana wa nisaana. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabsi qabay baa la yidhaahdaa ansaari inay tidhaahdo arrinkani kuma jirin heshiiskii aynu wada gallay. markuu nebigu weedhaa ku celceliya markaa waxaa istaagay sacd ibnu mucaad oo ansaar ka mid ah. wuxuu yihi wallahi lakaanaka turiiduna ya rasuula allah, ilaa baan ku dhaartay alla rasuulkiisiyo inaad anaga noo jeedaa baan filaya markaad weedhan ku celinaysa ila taliya. nebigu markaasuu yidhi ajal ay nacam, hayo idinka ayaan idin sheega. wuxuu markaa ugu jawaabay saxaabigan ansaarigii nebiga calayhi salaatu wasalaam faqad aamanaa bika wasadaqnaak washahidna ana ma ji'ta bihi huwa alxaq waacطaynaaka cala dalika cuhuudina wamawaafiqina cala asamci waطaaca lak famdi ya rasuula allah lima arad fanaxnu macak. ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waanu ku rumayn, waananu rumaysanay wixii aad noola timi oo dhan, waxaananu kuu qirday shahaada waxaad la timi ay xaq tahay, saas baanu ballanadayadii kugu siinay, waxaananu ku aqbalayna cala samci waطaaca, baanu mar kasta kuula taaganay inaanu ku yeelno. ee famdi ya rasuula allah lima arad fanaxnu macak, wixii aad doonaysa yeel waa kula jirnaa ilaahay rasuulkiisiiyo.
ilaa xaqa kugu soo saaraa ku dhaartay buu yihi law istacradta bina albaxra fakudtahu laqudnaahu macak haddaad badda intaad tagta aad gasho bay idhahdeen oo ad tidhahdo baddaynu gelaynaa nina waa kula gelaynaa ma kaa hadhayno ma takhallafa mina rajul waaxid buu nin qura oo ansaar ka mid a hal qof dib uma hadhayo wamaa nakrah an talqa bina cadwana hadda kamana cabsanayna buu leeyahy dhibna naguma hayso berri inaynu cadowgeenna la kulanno inaa lasuburun fi lxarb suddaqun cinda liqa ilaahay rasuulkiisa iyo dagaal raggu sabir badan baanu nahay buu leeyahy yani dad soo dagaalami jiro dagaal u sabir badan baanu nahay marka la isweeraray ay runta timaadana qolo ka rug sheegta baanu nahay buu leeyahy lacala allaha yuriika mina ma taqara bihi cayn waxaana rajaynaya in ilaahay naga kaa tusi doono waxay ishaadu ku doogsato ee fasir calaa barakat illah ku soco ilaahay subxaana watacaala barakadiisa weedhaa markuu ka maqlay nimankii ansaarta ahaa ee uu yaqiinsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay saxaabadu meel kula wada geeriyoonayaan ayaa fasura rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam biqawli sacd wanashad wuu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam weedhii sacd uu yidhi dabeetana markaas buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam siiruu waabshiruu faina allaha qad wacadanii ixda taa'ifatayn siiruu socda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo dagaal gala bushaaraystana ilaahay wuxuu ii ballan qaaday labada kooxood qolo ununu gacantayda geliyeen yani ama abu sufyaan iyo awsii baynu heli ama ciidanka quraysheed baynu helaynaa laakiin labada kooxood koox ka mida in ilaahay gacantayda gelinayo ilaahay baa ii ballan qaaday waayo dee qur-aan baa soo degay wallahi lakaanii andur ilaa masaarici alqawm ayuu haddana nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaabad moodaa buu nebigu leey inaan arkayo meesha maydkooda la dhigdhigayo meesha lagu legdayo qoomka inaan wada arko nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay siday saxaabadu daacada ula imanayaane u aqbalayaan iyo sida geesinimadu ku jirto ee ay kelmadooda isugu geysteen inay dagaalamaan iyo sida ay u rabaan inay naf iyo maalba u qadimaan oo ilaahay dartii u dhintaan oo aanay dan ka lahayn nolosha kale ayuu markaasi wuxuu bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ciidankiisii u ururiyo ibnu isxaaq duni sinaadu kusoo aroorey ta hore waa sanad saxiixu ibnu isxaaq kusoo arooriyey qisada hore ee tan tartiibka markaas wuxuu dhiibay baa la yidhahdaa alliwaa calan cad oo ciidanka o dhan calankiisiiya waxaa loo dhiibay saxaabigii la odhan jiray muscab ibnu cumayr markii horena ahaa ninkii uu soo diray reer madiine qur-aanka u dhigayey ninkaas baa loo dhiibay calankii ciidanka laba calan oo madmadowna waxaa la yidhahdaa waxaa loo kala dhiibay labada katiibadood ama labada kooxood ansaarta oo sacd ibnu mucaad ninkii uu hadlayay hadda uu hogaaminayo calankeeda loo dhiibay iyo muhaajiriinta oo uu hogaaminayo baa la yidhaahdaa caliy ibn abi aalib oo calankooda loo dhiibay labada ciidan oo la isku darayna yani ciidanka muslimiinta o dhan calankiisana waxaa la isugu dhiibay ninkaasi ninkaa la yidhaahdo muscab ibnu cumayr saxaabigaa la yidhaahdo saaqada ama dhudhunka ciidanka yani ciidamada waagii hore waxay u dagaalgeli jireen maymana iyo maysara ama bidix iyo midig iyo qolo dambe oo saaqa iyo qolo muqadamo aliica ah saaqada markaa ama dhudhunka dambe waxaa loo dhiibay isagana qays ibnu abi saasac nin saxaabiya la yidhaahdo halkan markaynu dhanka muslimiinta joogna waxaa muuqata ciidanka islaamiga oo dhami inuu dagaal galo in isku wada raacsisan yihin in ilaahay dartii loo dhintay in la isku raacsan yahi ama iyada dhanka gaalada markaynu togno isaga khilaaf ba ka jira oo waayo hadafkii dagaalka hadafkii loo soo baxay markii laga yimi oo waxay ahayd inay badbaadsadaan awrtooda awrtii inay badbaadayna warkeedii wuu yimid waataynu nihi qabaailka qaar ka mid waxay dhahay anagu dagaal geli mayna wa iska tegayna oo reer banu zuhra iyagu way dagaalka ka hadheen alkhanas ibnu shariiq ciidankaasi wuu reebay inu ihi 600 oo nin in ku dhadhow intii soo hadho abujahal weli ku madax adaygayo ayaa iyaduna waxay isku dayeen rag ka midii in dagaalka la joojiyo siiba cutba ibnu rabiica ninkii la odhan jiray iyo xakiim ibnu xazaan baa filaya ninkii kale la odhan jiray ayaa wada hadlay waxay go-aansadeen in dagaalka dadka laga joojiyo laakiin cutba asxaabu taarikh say wariyaan cutba la yidhi bal adigu abijahl masaladan ka dhaadhici asxaabu taarikh inay hadalla xunxunay dhex mareen bay sheegaan cala kulli xaal cutba wuu qancin kari waaye abujahl in dagaalka la joojiyo abujahl go-aan abuu qaatay inuu dagaalamayo
weliba culamaa taarikh waxay sheegaan abujahl go-aanka markuu qaatay si aan ciidanka looga kala jejebin ninkii soo hadhay labadii nin ee lasoo furtay ninkii walaalkii la dilay siriyadii cabdillahi ibnu jaxash horeynu soo eegnay kasoo warranay ayuu yidhi waar orodoo dhawaaq oo waxaad tidhahdaa masaasaan xilfi wadaag idinkula ahaa walaalkay la dilay mee xoolime oo tollaayayda dheh ciidanku ha dagaalame abujahl ra'yigiisii ahaa inay gaaladu dagaalanta ayaa xoog batay sida imaamu tabari sanad xasan uu kusoo aroorinaya taarikhdiisa ra'yiga abujahl ah in la dagaalamo markii uu xoog batay ayay mushrikiintii waxay isku dayeen in bal haddaba ciidanka loo soo basaaso nin bay soo direen marka ka mid ah oo jaasuus ah oo la yidhi bal kusoo samee kormeer oo soo eg jaasuuskii wuu yimi si uu soo hubiyo cadadka muslimiintu inta ay leegyihiin iyo hubka haystaan noociya iyo waa kaasi jaasuuskaasi war buu celiyey uu tilmaamayo nimankani inay yihiin niman horta waa koox yar buu yidhi nintan aan soo arko 300 ama wax yar bay dheeriyaan ama wax yar bay ka dhiman yihiin isla markaa buu yidhi waa xagga dambana balan soo eego dib buu usii cararay oo wuxuu yidhi wax madada iyo taakule ka dambayso soo socotana ma arko laakiin waxaan u arkaa buu yidhi koox yaroo madadka iyo taakulaynta wataan seeftooda habsanaya yacni nina kama dilaysaan inuu halaaga mooyaane marka waa koox ku tala gashay buu leeyahy geeri unbaa meeshan joogta ee koox caadiya maaha tir ahaanse waa niman yar buu leeyahy abujahl laakiin caqli xumadu bini aadamku markuu kibro caqligu uu ka tagaa abujahl waa nin kibray dadkuna mar hadduu kibro talada wuu seegaa abujahl kibirkii caqligi wuu ka tegey iyadoo nimankaas ay weli kala bixinayaan nimankani inta ay yihiin in leegin inaga dilaan mooyaane qabo si kale ku diri kari mayna aan noqono waa diiday abujahl talo oo dhan dagaal waxaan ahayn oo maanta aan aqbali karaa ma jira buu yidhi go-aankaas buu qaatay waxaa la yidhaahdaa go-aankii markuu qaatay ee ciidankii dagaal gashaday ayaabuu bilaabay caqli xumadiisa inuu ilaahay baryo oo yidhahdo ilaahay o anigiyo maxamedka ayaga rixim goyska badan le ninka yaga xun ilaahu jebi ayuu dabeetana habaarta ku bilaabay allahuma ayuna kana aqطacu liraxm waatana bima laa nacrif faaxinhu lghadaat buu yidhi baa layidhi ilaahay ow kayagii la yimi waxaan la garanaynin ee raximkiiyo tolka qaana gooyey ilaahu kaa aroorta goo isagu wuxuu isleeyahay maxamed baa la yimi waxaan sax ahayn ama se wuxuu isleeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qarabagoysa oo caynkan sameeyey ilaahu kaasi uu maanta go-aa buu leeyahy oo waagu markuu beriyo kaan waxba ka hadhin sa axaadiistu tilmaamaysana waa ka aayaadka qur-aan ku soo degeen masalada tan ee ilaahay tilmaamayo in tastaftixuu faqad ja'akum lfatx baa ilahay yidhi haddaa ilaahay weydiisanayseen inuu idinkala furto waa yimi baa ilahay yidhi furashadii wain tantahuu fahuwa khayru lakum haddaad ka waantoobaysaana waxaana wadaan ka noqonaysaana waa idin khayr badanta wain tacuuduu nacud haddaad soo noqotaana waa soo celinaynaa baa ilahay leeyahy walan tugni cankum fi'atukum shaya walaw kasurat waana allaha maca almu'miniin tirabadnidiiduna waxba idinka tari maysa baa ilahay yidhi subxaana watacaala kooxdiinu waxba idinka dhicin maayaan xataa hadday tiro badan yihin ilahayna kuwa mu'miniinta ayuu la jiraa muslimiintii beder iyo biyaheeda iyagaa uga soo horeeyey sida uu tilmaamaya xadiis sanadkiisu yani xadiis mursala oo sanadkiisa ilaa curwa waa saxiix laakin dee mursala inuu daciif iyo baynu naqaanaa waxa uu sheegayaa alxabaab ibn lmundir ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa meel tilmaamay in la dego markaasaan idhi buu yidhi meesha tani ma makiido dagaalma ma taktigi dagaal baynu u degaynaa mise waxyaa soo degay inaynu halkan degno markaasaa la yidhi maya waa taktigi dagaal baa loo degaya taktigi dagaal halka waa laga fiican yahay buu leeyahay biyaan xagga hore ka marno oo nimanka biya la-aan aan dhigno ceelasha biyaha inagu dhabarka aad ka marino si aanay biyo u helin markaas buu aqbalay buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi waa xadiis daciifa sixadiisa laakiin mid baa iyadu iska cabaa mabda'a shuurada iyo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kastoo aan waxyi ka soo degin inuu saxaabada kala tashan jiray taasi waa arrin nusuus badan oo qur-aan iyo sunnaba ay tilmaamayso sheegaysana in dhaqanka dadka muslimiinta ilaahay baaba le waamruhum shuuraa baynahum ama nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ilahay ku leeyahy washaawirhum fi lamr arrinta kala shig dhaqankii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaaba ficil inaanu qabanin mar haddaan waxyi ka soo degin ilaa inuu la tashado mooyaane tala wadaag inay waayo taladu waxay keentaa dadku markuu wadaago ko
waxaa suurtagala ra'yiga fiican inaanu kaaga hayne lagu tusiyo midka fiican waa suurtagal. waxaa kaloo suurtagal ku jira iyaduna dadku inaanu markaasi istuhmin hadday jab dhaco in jabka loo wada adkaysto aan cidna aad la saarin, waayo cid waliba salada way ka qayb gashay oo waa ra'yigii jamaacada o dhan ra'yiga kani. hadduu nin qura idin martiyatiisa shushursiyo aad jabtaan berri mar dambe la aqbali kari maayo ninkaasi, ama waa ninkii shalay reerka jabiya la leeyahy. laakiin haddii marka horeba talo lagu wada galay oo dadkao dhan ay ka dhexaysay, nin waliba in la jabay wuu accept garanaya ama wuu aqbalaya. yani shuurada wax badan oo faa'iidaa bay leedahay. markaa dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ahaa wax walba inuu ka shuureeyo haddaan waxii soo degin. idan inkastoo xadiisku daciif yahay, baciid maaha inuu nebigu tashado calayhi salaatu wasalaam. waana arrinuu ku barbaariyey saxaabada. riwaayo saxiixa markaynu qaadano cali bn abi aalib warinaya wuxuu leeyahay habeenkii 17 ramadaan ay ahayd waxaanu habeenkaasi seexanay buu leeyahay. laqad ra'aytuna ywma badr wamaa mina ilaa naa'im buu leeyahay. maalintii beder naga midi haddaad arki lahayd buu leeyahay ma jirin qof naga midi leeyahay habeenkaasi wuu seexday ilaa rasuul allahi mooyaane sala allahu alayh waalih wasalam. habeenkii dagaalka la geli doono dhammaantood way wada seexdeen nebiga mooyaane calayhi salaatu wasalaam. nebigu isagu muu seexanin habeenka kale. saxaabadii kale oo dhamme way seexdeen. nebiguna wuu istaagay habeenkaasi geed buu tegey, hoostii wuu tukanayey, ilaahay buu baryayey ilaa waagu ka baryayey buu leeyahay. wuxuu kaloo cali bn abi aalib buu leeyahay habeenkaasi waxoogaa rooba ayaana helay oo lagu qabowsado. roobkii markuu nagu soo da-ayna buu leeyahay dadkii dhirta hoosteeda ayay galeen. dadka badhna wixii sitay maxaa la yidhahda tars ama gaashaanku dee harag buu ka samaysana biyaa waa celinayey. ragga badhna gaashaankoodii bay hoos farfadhiisteen buu leeyahay. badhna meelaha kan iyo dhirta ayaa roobka laga galay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenkaasi oo dhan ilaahay buu baryayey isagoo le allahuma inta ahlik hadihi lfia la tucbad, ilaahw kooxdaa yar maanta haddii ay la halaago ilaahu dunida dib lagugu caabudi maayo. yani wuxuu tilmaamayay in islaamku jab ay u tahay dagaalkan maanta diin iyo diin la-aanun inay joogto, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamiga inay quwoobaan inay ku xidhan tahay dagaalkaasi inay guulaystaan. wuxuu leeyahy cali bn abi aalib siduu ilaahay u baryayey baa markuu waagu baryaana loo yeeray iyadoo laleeyahay asalaa cibaad allah asalaa. markaasaanu dhirtii kasoo wada hoos baxbaxnay buu yihi gaashaamada iyada iyo wixii. halkaas buu nebigu nagu tukiyey calayhi salaatu wasalaam, isaga oo markuu salaadii na tukiyey kadibna dagaal aad noogu booriyey buu yidhi. xadiiskii musnad oo imaamu axmed buu ku yaala sanad saxiixan oo kusoo aroray. dagaal isagoo aad noogu booriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. riwaayad daciifa ayaa iyagu waxay sheegaan tacbiyat ljeish iyo tahiyadoodu inay habeenkii dhammaystirantay. laakiin riwaayadda caliya saxiixi waxay tilmaamaysaa habeenkaasi in laska seexday uun, laakiin subaxii uun ay ahayd waktiguu dagaalka dadka ku borinaya dhiirigelinayay. xadiidkaasi siduu sheegay in roobkani soo da-ay ama inay seexdeenna waxa kaaga filanba aayaadka qur-aan ee ilaahay subxaana watacaala waa ka inoogu tilmaamaya in alla seexiyey oo qur-aan inuu soo degay id yugashiikum nnacaasa amanatan minh. waa ka ilaahay subxaana watacaala tilmaamaya inuu ku soo dejiyey hurdo iyo in roobka loo soo dejiyey aayaadka qur-aan aba wada tilmaamaya. markaad u fiirsato soo dejintan uu ilaahay subxaana watacaala ku soo dejiyey hurdada, horta hurdadu waa shay qofka bini aadamkii uu nashaadka dhammaantii dareemo. qofka bini aadamkii markuu daalo waxa ku dhay daal ka bixiya waa hurdo. hadduu seexdo qofka bini aadamki wuxuu dib u soo kaca isagoo nashiita oo furasha oo aan kii hadeer daalay ama cabanaya aan ahayn. hurdadu waxay kaloo astaan u tahay qofka deganaanshiyihiisa. qofka bini aadamkii wuxuu gam'aa marka uu mutma'inulqalbi yahay, markuu xasiloon yahay. amaa qofku goob uu baqaya hadduu joogo hurda kama timaado. yani qof baqaya hurda kama soo degto, qof warwarayo walwalhayana hurda kama soo degto. hurda waxay ka soo degtaa un nin xasiloon, nimaan warwarna haynin baqana haynin. idan goob dagaal haddaad gamaado macnaheedu waxa weeyaan qofkani inuu mutma'in ba yahay, qof aada u degan inuu yahay oo si fiican hadhow dagaalkiisa wadi kara, qof aan warwar badani ka hayn dagaalkan iyo waxaan oo dhan. ilaahay subxaana watacaala saxaabada tan markaa isagoo qalbigooda dejinaya
oo lagu talagalay aroorta berriya inay si fiican u dagaalamaan waxa uu alle subxaana wa tacaala ku soo dejiyey hurdo. hurdadaasina waxay ka mid tahay been lena waxyaabihii ilaahay subxaana wa tacaala ugu gargaaray ayay ka mid ahayd hurdadaasani. waxa kale uu alle subxaana wa tacaala ku soo dejiyey roob oo markaasi dhulkii macrakada iyo meeshii ay ku dagaalamayeen oo dhan ilaahay uu nabay subxaana wa tacaala oo uu hagaajiyey. oo roobkani mid laga cabo uu noqon karaa, ciidda iyo dhulkan oo dhan mid hagaajiyo meesha lagu dagaalgalayo ay fiicnaato waa noqon karaa. yani wuxuu ka mid yahay roobku waxyaabaha nafta bini aadamki haddaanu noqonin mahigaan dee qaada, roobka yar ee waxoogaaga ahi mid isagoo laftiisu nafta raaxo geliya. idan waxaa ka muuqata habeenkan ay dagaalka galayeen in ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka kan dejiyey oo loogu talagalay qalbigooda in ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام بإله بالمام وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر بكم إلهي بالرب دين سودكي سيدكم طاهر يا لالين والشيطان كي رجس كيسا قولن كيسا إذن كاكحايو وقلبك نوالا واسكايو وقمدين ووصغا وضرر كستان أي إلهي سبحانه وتعالى سيدان وقالي واقي مركو بريين وحنا موقطونها بينك النبي قونين وهاي تقول السوشي دي حارسك هيدا مدد كان إلالين واقو مركو بريين waa dagaalgelin ayay ku talagaleen. subaxday markaa ramadaan 7 ahayd ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii isku diyaariyey sida imaamu axmed musnadkiisa uu kusoo arorinayo. subaxaas waanu safay ciidanka, waxaanu u safay nidaam sufuuf inay u dagaal galaan. waa ka tilmaamaya yani nin caalim oo muslim oo dhintay dhawaan maxamuud shiid khitaab yani janan ciidanna ahaan jiray wuxuu leeyahy usluubku nebigu uu u dagaalgeliyey beder iyo dagaalo badan oo ka dambeeyeyba waa usluub aanay carabi hore ugu dagaalami jirin. usluubkana aan sufuuf sida salaada loo galo oo kale sufuufa buu nebigu u dagaalgeliyey. laakiin carabtu usluubadii caanka ah ee waagaa loo dagaalgeli jiray wuxuu ahaan jiray usluub alkar walfar. usluub kolba koox inay dagaal gasho ka soo baxdo saasi alkar walfar la sameeyo, rogaal celin iyo ka bixis saa loo dagaalamo. usluubkan bay yidhaahdeen sufuuftu wuxuu ku fiican yahay kow ciidanku markuu yar yahay wuu uga fiican yahay alfar walkar ciidan badan baa sameeya bay yidhahdeen. waxa kale uu ku fiican yahay bay yidhaahdeen khasaa'irta ayuu ku yareeya. wuxuu kaloo ku fiican yahay bay yidhaahdaan qaa'idka ciidanka ka salinaya zimaam lamr gacantiisa ayuu ku wada jiraya. wuxuu kaloo ku fiican yahay bay yidhahdeen cid kasta oo soo gasho nooca kana si fudud ayaa loo celin karaa. idan waa nidaam aanay carabi hore u aqoon buu leeyahay nidaamku nebiga kan uu subaxaasi saxaabadiisa u dagaalgeliyey. sufuuftaasi markuu simay nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga xagga dambe ayaa cariish yar looga dhisay, quba yar oo uu markaasi ciidanka ka hogaamiyo. qubadaa yar in loo dhisana sida riwaayadda bukhaari ay tilmaamayso sacd ibnu mucaad baa keenay oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ciidankani waa ciidan yar, muslimiin badanina waa kaa dambaysa, wax walibana waa dhici karaan goobtan dagaal. waxaan rabnaa inaad dagaalka xagga hore aad ka gelin xagga dambe inaad joogtid oo mar kasta oo ciidankani xataa hadduu jabo in la heli karo muslimiin badan oo dee madiine ku harsanayd oo kusoo taakulen kugu soo gaari karta. marka xagga dambea meel yar looga dhisay. waana qaacida macruufa ah dee ciidan kasta oo meel dagaalgelaya in maamulkiisa ama ciidanku si aanu maamulkiisa u lumin cidda ka salinaysa in la ilaaliyo. maxaad umalaynba dee ummadda nebigeed. waxau kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay dagaalka inaanay gelin ilaa iyo amar ay isaga ka helaan mooyaane. dagaalka inaanay gelin oo weerar inaanay qaadin amar in laga helo mooyaane. wuxuu kaloo nebigu faray calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasi marka laydinku soo qaadee weerarka laydinku soo qaadaba seefta galka ha ka saarina buu yihi, seef ma haydin galaysnaada. waxaa adeegsataan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam gamuunkiina leefkiyo qaasaduna adeegsada oo ciidanku markuu soo yaacaba gamuunka ku rida oo weliba wastabquu nablakum ha iska tuurtuurinoo hubiya oo markay idiin soo dhawaadaan ku garaaca. waa usluub jadiida bay yidhaahdeen oo ah ciidanku xoogiisa iyo seeftiisaba inuu dib u dhigto. waa halkan maanta laga isticmaalo ciidanka intaan dagaalka la gelin dee madaafiic baa meesha lagu tumaamo kadib baa la yidhahdaa inventorigu inuu galo. sidan oo kale waxay ahayd yani gamuunkani waa mid fiican kuna la hayay gacanta ka baxaya ee ciidanka ku tumaya. marka ciidanka waxa u adeegsataan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam gamuunkiina. marka gamuunka ku dagaal gashaan kadib uun ayaa la rabaa in seefta lagu dagaal galo. wuxuu nebigu faray markaa qofna inaanu meeshiisa ka dhaqaaqin sidaa la yeelo.
sidii bay ku dagaalgaleen nebigu calayhi salaatu wasalaam markay mushrikiintu usoo dhawaadeenna dagaalku uu bilaabmayna wuxuu u faray qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard u kaca buu nebigu markaa mar qura amar ku siiyey janno ballaceed uu leegyahay cirkan iyo dhulkanba samaawaadka kan oo la isku daray iyo dhulka jannaha ballaceed uu leegyahay u kaca waxaa la yidhahdaa cumayr ibn alxamaam saxaabiga la ydhahaa cumayr ibn alxamaam alansari ayaa wuxuu maqlay weedhasan dabeetana nebigu su'aal ku celiyey yaa rasuula allahi janna carduha asamaawaat walard ma hadda haddii halka lagu geeriyoodo waxaa la helayaa janno cirkan iyo dhulkan iyo waxan oo dhan ballaceedu leegyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nacam qaala bak buu markaa yidhi ama bakin waa inay carabtu ay isticmaasho oo ah yani waxa markaad la yaabto tacajub loo yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maa yaxmiluka calaa qawlika bak maxaa kugu kalifay inaad bak tidhahda buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala laa wallahi ya rasuula allah ilaa rajaa an akuna min ahliha wax kale iguma kalifin bu yidhi ilahay rasuulkiisiyo inaan rajaynayo inaan kuwa ka mid noqdo mooyaane waa xadiiskii saxiixa ku yaalay markaas buu wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fainaka min ahliha adigu ahlu jannaad ka mid tahay buu nebigu ku yidhi dabeetana saxaabigaas waxa la yidhaha waxoogaa timir u haysta markaa cunayay uslaa dagaalka aad bilowdi timirtiisii buu soo saaray markaasuu midhar ka cunay dabeetana waxaa la fogaatay inuu timirtan dhamaysto ilaan jannaa loo sheegay cirka iyo dhulkaba ka ballaadhan in lagu yidhaahdo cirka iyo dhulkaba wax ka weyn baad helaysaa dagaalka waxa laga yaaba inuu u dagaalami lahaa hadii la yidhaha hariibaa la helaya ama waxoogaa xoolaabaa la helaya laakiin iyadoo lagu yidhi janno cirka iyo dhulkaba ka weyn ayaad mujarad intaad dagaalkan ku dhimanayso inay kaa xigtaa idan geeriday nolosha markaa ka jecel yihin sida awgeed buu timirtii eegay wuxuu ihi lain ana xuyitu xataa aakula tamraati hadihi inaha laxayaatun tawiila wallahi ku dhaartay buu yihi haddaan sii noolaado inta aan midhahan timirtaa ka cunayo tani waa nolol dheer buu yii yani timir dhamayso hadday arrinku joogo waa nolol dheer buu yii timirtii buu iska dhigaa leyi waa tuuray faramaa bima kana macahu min atamri uma qaatalahum xataa qutil dabeetana wuu ka dagaal galay ilaa iyo uu ka naftu ka baxaysay cumar bin khaaab wuxuu inoo sheegay maalintaasi beder oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mushrikiintu eegay buu yidhi ilaa kunnina dabeetana saxaabadiisu eego 300 ah markaasuu qiblada u jees oo gacmaha aad u taagay buu leeyahy isagoo nebigu qaylinaya calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baryaya oo leh allahuma anjis lii ma wacadtani allahuma aati ma wacadtani allahuma in tahlik hadihi alcasaaba min ahli lislaami la tucbadu fi lard ilaahayow iisoo deji wixii aad ii ballan qaaday ilaahayow isii wixi aad ii ballan qaaday ilaah kuwa yar haddii la halaago yani waxaa meesha ka muuqata oo runtii si fiican loo tilmaamayo qofka muslimka ahi meesha uu xoog iyo midabka ka daya waxaa laga yaaba innaga markaad dhibtu ku qabsato waxa koowaad aad ka fekertaa inay noqoto bini aadam waar xaggaad u kacdata kii hebel ah miyaad qabataa mise ciduna aad tileedahay waxbay ku taraysa marka koowaad maskaxdaada waxa kusoo dhacay noocay ka noqday laakiin waxaad arkaysaa ambiyada iyo saalixiin dadka wanaagsan marka mushkiladu qabsato waxa koowaad ama meesha koowaad ay u kacaan inuu yahay ilaahay subxaana watacala waa biyadihi alkhayru kullu idan qofka mu'minkaa waxaa habboon wax kasta oo dhib oo qabsada meesha uu la aadaya inay noqoto dad yadasan maalmo ka mid a waxaa arkay nin wadaada runtii oo dadkan cibaadada jecel mas'alo ii sheega aad baan ula yaabay waayo waxaan ahayn waxaan dadka ka bartay waa norway isagoo jooga oo dhul gaaleed jooga ayuu gurigiisi ka ambaday gurigii buu waayey guriga markuu waayey de waxa kugu soo degdegaya kooda waxa weeyaan kalendarkii laga eegi jiray boosta iyo ama tagsi inuu kareesto idhahda adreska geeyo ama inuu cid weydiiyo waxaasaa de qofka maskaxdiisa gurigii markaan waayey buu yidhi un baan istaago ilaahay baan baryey ilaahu gurigayga ii tilmaamo aan helaa baryadii markaan dhamaystay baan dhaqaaqay buu yidhi toos baan u galay yani ninkaa maskaxdiisa waxa ku jiraan ka yaabay waayo waxa koowaad uu ka fekeray baa waxay noqotay maad ilahay kaalma weydiisay intaanad cid kale bini aadam war sekadaasi xaggay xigtaa iyo adreskaasi aan ku yaallay intaad waxba odhanin ilahay maad wax weydiisatay idan qofka mu'minka waxaa dhaqankiisa caadiga ah mushkilad kastoo ku timaada albaabka uu garaacaya inuu noqdo ka alle subxaana watacaala waayo ilahay baa wuxuu yihi anaga gacantayda wax waliba ku jiraan sidaa ogeed nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasi in badan ilaahay buu baryey siduu ilaahay u baryayey baa la yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam baa go-i ka dhacay go-i sare saara ayaa ka dhacay
abibakar oo markaa dadkii ilaalinaya la joogaya ayaa wuxuu yihi ya nabiy llahi kafaaka munaashadatuka rabbika ilaahay rasuulkiisiiyo intan aad alla bariday weydiisay kugu filan buu ku yihi waana kuu filinaya ilahay subxaana watacala wuxuu kuu ballan qaaday dabeetana cumar wuxuu leeyay waxaa soo degay aayaadka qur'aana ilahay leeyay id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum balfin min almalaa'ikati murdifiin faamadahu llahu bilmalaa'ika buu leeyay ilahay ba wuxuu leeyay waxaa xustaan marka ilaahay kaalmo ka dalbayseen ee ilaahay uu idinka aqbalay ee uu idiin soo dejiyey kun malag oo idinla dagaal galo oo isdaba socda siduu nebigu u baryayey baa nusuusta qur'aani kusoo degtay dabeetana carishii wuxuu ka soo baxay nebigu isagoo roorayo le markaas sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur isagoo aayaadkaasi akrinaya sayuhzamu ljamc kuwan isa soo urursaday waa la jebinaya wayuwalluuna dubur waa daba jeedinayaan isagoo nebigu laha aayadda qur'aan ah oo qur-aankii hore usoo degaya isagoo markan ku celcelinaya buu nebigu alayhi salaatu wasalaam soo baxoo leh sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur cali bn abi aalibna waa ka tilmaamaya nebigu alayhi salaatu wasalaam dagaalka intuu mubaasharoodo naftiisa laqad ra'aytuna ywma badri wanaxnu naluudu birasuuli llahi sala allahu alayh waalih wasalam wahuwa aqrabuna ila alcaduw wakana min ashaddi nnaasi ywmaidin ba'sa xadiid imaamu axmed uu warinayo axmed shaakirna uu leeyahy waa saxiix ayuu cali bn abi aalib wuxuu leeyahy waxaad arkaynay maalintii beder iyadoo aanu nebiga ku daba gabgabanayna buu leeyahy o nebiguna cadowgaba noogu xigo maalintaana rag inoogu dagaal adkaa ayuu nebigu ahaa buu leeyahy alayhi salaatu wasalaam markaasi uu ka soo baxay cariishkii ee uu dagaalka soo galay dagaalka kani wuxuu ku bilaabmay mubaarazaad mubaarasadu waxaa caado ahaan jirtay ciidanka raggooda isbiday ee geesiyada ama marka hore isu bixi jiray mubaarasa ayuu ku bilaabmay oo uu horkacayo cutba bnu rabiica iyo inankiisii iyo walaalkii waa laba nin oo walaalaa iyo inanu midkood dhalay saddexdoodaasee mubaaraso usoo baxay waayo waxay yidhahdaan cutbo waxa soo qadimay waa ku abujahal baa markuu dacaadeeyey wallahi safka saxru sababada karaya buu yidhi yani wuxuu ku dacaadeynaya u lahaa wuxuu arkay buu yihi ciidankan kasoo horjeedo akalatu jazura in la qabqabanaya inaanu dhalo kalena wuu ku jira yani inaanu dhalayba xagga muslimiinta kasoo jeeda marka wuxuu jiri maanta inankaagu yuu dhimanin caynkaasi dabeetana waa afkaa ka xumaado waa inoo berri baa la yidhi keena sambaku karaa baraad arki doontaaye saasi daraaddeed buu mubaarasadii koowaad baa cidda soo baxday waa odaygii cutba ay ishayeen abujahl iyo walaalkii iyo shaybe ah iyo inan ay dhaleen oo wulidi la yidhaahdo intaasaa soo baxay dabeetana safkan muslimiinta waxaa jooga niman aanay qurayshis arag laakiin cadho dhammaanteedu ceel qaba yani muhaajiriintu waa niman ay quraysh hore isu yaqaaneen iyo raggooda laakiin safkan ansaarta la yidhaahdo ansaartu waa niman horta dagaal hadda ka soo baxay bay ahayen oo xarbu bucaas bay ka soo baxeen waa niman aad u dagaal badan bay ahayen isla markaasi waa niman aan gaalo dagaal weli la gelin ama gaal aanay gumaysan sidooday ku islaameen guryahoodii bay joogeen dadkooda intii u badnayd baa islaamay marka magaaladan ay ku koraan islaam baa hogaaminaya niman dhalinyaraana way u badan yihin shabaab aad u xamaasadaysan oo kacsan oo maqlay un niman baa nebiga ku dhibi jiray marka ilaahu yaa indhaa idinka qaada un dhalinyaro le nimankii nebi maxamed wixii la ogaaya dhiba u geystay ayaa meesha iska jooga saa daraaddeed mubaarasadii markay kooxdani soo baxdayba markiiba waxa soo booday 3 nin oo dhalinyaro ansaar ka mid a 3 dhalinyaradii ansaareed ka mid a ayaa markiiba usoo baxay dabeetana waa diideen qoladii quraysheed baa waxay dhaheen may waxaanu rabnaa dalkayo nimankii inaga yimi ee ragga fatahaadiyaanu doonaynaa bay leeyihin dhalinyaradiina tan uma soconno nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu amar bixiye uu yihi kac xamse kac cali kac cubayda waa cubayda bn alxaris bn lmualib waa 3 nin oo faamiligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xamse adeerkii ruma iyo caliyan adeerkii ruma waa 3 nin oo 3 isku family yihiin ayuu nebigu kiciyey markaasuu yihi baxa mubaarasada 3 tan baa u baxay xamse kumuha kane markiiba odaygii koowaad ee cusbe ayuu ka takhallusay calina waxaa la yidhahdaa shayba buu ka takhallusay cubayda iyo wulidna 2 seefood bay isweydaasteen baa la yidhahdaa sunan abi daawud xadiiska oo saxiixinaya saasuu sheegaya inkastoo culamada taarikh inta badan ay isweydaariyaan ay ka dhigaan shaybe iyo cubayda inay ahaayeen 2 seefa isweydaartay ayan kaane 3 nin iyo 3 nin isu soo baxay 2 markiiba waa laga takhallusay midna labadoodiiba 2 seefood oo halista isweydaarsadeen way dhaceen dabeetana labadii saxaabe labadooda ka takhallusay cali iyo xamse iyagu markiiba labadoodii dilay ayaa kusoo kala celiyey kii kaleno
kii saddexaadna nafta ka jaray koodii dhaawac ahaana dib u qaatay saxaabigan dhaawacii markii beder laga noqday dhexda lasii socda ayuu isna naftu ka baxday u shahiido saddexdii koowaad ee mubaarasadii ka soo baxay mushrikiinta saddexdiiba waa la dilay caradii waa kusii badatay quraysh isla weynideedii saddexdii oday hore ay soo qadimtay marka saddexdii baa laga takhallusay caradii waa kusii badatay dabeetana hujuum bay bilaabeen weerar bay bilaabeen weerarkii ay soo bilaabeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bixiyey amarkii ahaa gamuunkun garaaca oo seefaha ula bixina yani yaa safkaba la soo gelin ee gamuunkaasi un ku tuma sidii baa la yeelo gamuunkii bay ku tumeen waxaana la tilmaama nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu sacab ciida qaaday baa la yidhi uu ku saydhay shaahat ilwujuuh isagoo leh sacabkii ciida ku saydhayna ilahay baa indhaa ka wada geliyey waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo wamaa ramayta ida ramayt walaakina allaha rama ma tuurin baa ilahay yidhi markii aad tuurtay yani tuuriyo dee ciida waa tuurtay laakin tuuriyo indha gasho oo dadka qof indhaa usoo gasha sacab ciida haddaad tuurta de ama qofba ku dhici ama meelahaasu ku dhici laakin ciidan dhan inuu isha ka gala iyadu waa qadiyad kale ilahay baa markaa wuxuu leeyay subxaana watacaala wamaa ramayta ida ramayt markaad tuurtay waxba maa tuurin baa ilaahay leeye walaakina allaha rama ilahay baa ganay oo indhahooda wada gaadsiiyey waliyabliya almu'miniina minhu bala'an xasana in allaha samiicun calayh labadii ciidan markaasi waa kulmay dagaal aada u adag baana ka dhacay markaa oo muslimiintuna ay aada u mintidayaan gaaladiina markiiba waa lala kacay goobtan ragga aadka u mintidaya xagga gaalada kasoo jeeda waxaa kamid ahaa baa la yidhahdaa shaydaankii camar ibnu hishaam la odhan jiray abujahl qolada aada u dagaalantay buu kamid ahaa laakiin sida axaadiis saxiixday ay tilmaamayso isagana laba saxaabiya oo yaryaro asaasi kamid ah ayaa ka takhallusay markii dambena cabdillahi ibnu mascuud baaba madaxa kasoo gooyey yani dagaalku markuu sii adkaaday cabdiraxmaan ibnu cawf ba wuxuu leeyahy waxaa wiil yar oo dhalinyaro kamid unbaa hareerta iga soo galay buu yidhi markaasu wuxuu gu yidhi bu yidhi ade waxaad ii sheegtaa ninka abujahal la yidhahdo maxaad ku falaysaa baan ku idho ilahay rasuulkiisu caayi jiraa la yidhi kaasi maanta sii dayn maaye tilmaan buu leeyay nimankan abujahal raadinaya garabba maaya waayo ismay arag ee waa dhalinyarada reer madiina aan tilmaamayno dabeetana wuxuu cabdiraxmaan ibnu cawf oo dee nin muhaajira oo reer makaabu wuxuu leeyahy adeer anigay tilmaamuno waxaad ii sheegtaa abujahal ninka la yidhahdo kii intaanan u jawaabin buu leeyahy baa dhinaca kale wiil kale iska kay soo taagay buu isna ansaar ka mid ah waa mucaad ibnu camar ibnu ljamuux iyo mucaad ibnu cafra weeyaan ayaa dhinaca iska kay soo taagay buu yidhi oo isna le buu yihi adeer ii sheeg abujahal waa kee labadii wiil oo midba dhan iga weydiinaya buu yihi abujahal ku yahay ayaan arkay bu yihi abujahal oo geed weyn aad moodo halkaasi ka dagaalamaya dabeetana waxaan idhi bu yihi waa kaa abujahalkaad raadinaysaa labadiiba waa biibeen buu le waa duuleen oo waxay iskula sii daayeen abujahal ninka la yidhaahdo dabeetana kii koowaad seef buu ku dhuftay isagana wiil uu dhalay oo ikram oo meesha taaganaa baa seef ku kiciyey kii labaad ba haddana ku kiciyey labadiiba dhulkay ugu tuureen abujahal ninkii la odhan jiray abujahal oo dhaawaca baa la yidhi meel iska yaalla ayuu cabdillahi ibnu mascuudna soo maro intuu halkaa luqunta iskaga taagay ayuu madaxa kasoo gooyey abujahal markaasi waa geeriyooday oo waxaa dilay labada wiil nimanka waaweyne macrakadan lagu dilay waxaa kamid ah umayata bnu lkhalf umaya markii gaalada la jebiyey ay jabeen badhna la qabqabanayay 70 waa laga dilay 70 waa laga qabqabtay bay yidhahdeen culamaa siira iyadoo la xidhxidhayo riwaayadka saxiixaysay ku soo arooreen waxa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu qabsaday baa la yidhi ninkii la odhan jiray umayata bnu lkhalf iyo inanu dhalay isagoo xadhigga ku xidhxidhanaya oo wata culamaa siira waliba taarikh dheer bay sii sheegeen waxay dhaha labada nin berigii hore ay saaxiib ahaayeen oo dabeetana cabdiraxmaan ibnu cawf oo urursanaya duruuci iyo hub iyo wixii uu helay ayuu yidhi war miyaanad geel caana la doonaynin ma aniga kolleyba waa lay xidhaya waa kanoo lay tabay adigu ikaxayso yani adigu aad geela heshide si kasta ha ahaatee waa la qabtay iyadoo uu xadhigga ku giijistay oo wato ayaa waxaa arkay bilaal umayata bnu lkhalf waa ninkii bilaal intuu dhagaxa laabta ka saaro cadceedda dhigi jiray mushriga ahaa dabeetana bilaal baa arkay ninkii oo la hayo bilaal baa ku mursanoobay markaa laa najawtu in najaa buu yidhi ilaahay waxaan ku ballan galay inaad nabadgelin haddaa nabad galo yani labadeena midkeen uno maanta la waaye mooyaane inaan nabad kale jirin ama adaan dhimanaya ama anaan dhimanaya waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan baa yidhi war waa maxmuudkayga hala ii daayo laa najawtu in najaa dib uu qayliyey ra'su lkufri buu yihi umayata bnu lkhalf baa halka taagan
markay maqleen bilaal qayladiisii baa dhallinyaradii dagaala ku jirtay markiiba soo rogaal celiya bilaal iyo riwaayadka saxiixa qaar ka mida waxay tilmaamayaan wuxuu yidhi markaan arkay ina lahayo cabdiraxmaan ibnu cawf ayaan wiilkiisii cali u reebay buu yidhi waa naga mashquuli bal inuu cabaar dagaalamo isaga ay dilaan oo aan la baxsan karo maxbuusnimo u kaxaysto kii yaraa markiiba waa ka takhaluseen dabeetana waa ku soo gaadheen markaan arkay buu yidhi inaan la bixinayn baan qaydiyey buu yidhi dabeetana waxaan idhi war fariiso hadal kugu dhacayaan dusha kaa fuule oo bal ku qariya in lagu daaye wuu fadhiistay buu yidhi mid qari weyn buu ahayo dushaa ka koray buu yidhi laakiin seefay hareeraha iga soo geliyeen buu yidhi hoosta nabar buu tusi jiray cabdiraxmaan ibnu cawf berigii dambe u odhan jiray seefay hoosta ka xululinayeen bay ana halkaa qubka igaga jireen buu yidhi isna way ka takhaluseen umaya ibnu lkhalafna meesha ayuu ku go-ay isna kama tegin qur-aanka ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoogu tilmaamaya maalintan beder in malaa'ig badan ilaahay soo daayey oo dagaalka ka qayb galeen walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla fattaquu llaha lacalakum tashkuruun id taqulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaثati aalaafin min almalaa'ikati munziliin iyo nusuusta lamida waa kari karaya ilaahay subxaana watacaala malakul jibriil qul intuu yimaado in xag kale u rogo jibriil qura ku filnaa laakin ilahay wuxuu rabay inuu dadkan la imtixaamo waliyubliya almu'miniina bala'an xasana waa ka alla subxaana watacaala waxaa la rabay waliyubliya almu'miniina minhu bala'an xasana in allaha samiicun calim in dadkan la imtixaamo oo ilahay subxaana watacaala aslanba waa kari karayay diintiisa in nebiga hal malaga lagu soo daro wixii diidaba u dhulka la jaro un ay taasi ku socoto dadku kasab ku aqbalo lakin ilahay wuxuu ugu talagalay juhdi bashari inay ku socoto awood bini aadam inay ku socoto isla markaa dadka in la imtixaamo oo dadka dee loo soo dejiya in lagu imtixaamo waxa ilahay rumaynaya waxa beeninaya ilahay walba cid walba waa qasbi karaya walidalik ba malaa'igta timina qaabkii bini aadamka o kale un bay u dagaalamaya oo farda wato oo saasi u dagaalamaya ayuunbay iyaguna ahaayeen saynu xagga dambe ka arki doona markaynu eegno nusuusta ku soo aroortay ibnu cabaas waxa uu tilmaamaya oo yidhi iyadoo nin muslimiinta kamid maalintasan nin mushrikiinta kamid uu ku daba jiro ayuunba hortiisa wuxuu ka maqlay un sawt yani jeedal faras korkiisa jeedal lagaga dhufanayo oo uu qaylinayo ninka jeedal ku dhufanayo iqdam xayzum uu leeyahay xayzumna waa faraska magaciisii dabeetana hortiisunba eegay markuu faraskii iyo codkii maqlayba hortiisa eegay mise ninkii mushrikee u eryanayayba waa dhulku yaalla oo halkaas sanka korkiisa seef lagaga dhufto lagaga jaray oo wejiga darabaad baa kaga dhacay oo midabkiisiiba uu isbedelay markaasuu nebiga u sheegay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ansaarigii baa soo noqda wuxu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo waxay gu dhacay maalintan dhawe waxaan mid aan eryayu maan kuno kambashiisaba la qaaday oo hortay dhulka jiifa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqta dalika madadun min asamaai haalisa run baad sheegtay buu nebigu yidhi waa ciidankii samada saddexaad ka yimi buu ahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa ka takhalusay waxaa malaa'igta dagaalkeeda aad ka dareemaysaa nin ansaarta ka mid ah ayaa cabaas ibn cabdilmualib ayuu soo maxbuusnimo u keensaday dabeetana cabaas ba wuxuu yidhi cabaas afka gaaladu marka ka kusoo jiray inkastoo riwaayadku ay tilmaamayaan wuxuu kamid ahaa muslimiintii lasoo karaayey ee meesha qasabka dagaalka lagu soo raaciyay oo islaam bu ahaa ay leeyihin lakin islaamnimana idinkama aqbalina waxa la yidhi isfuro oo maxaabistu kamid ahaa lakin waxaa jiray sideedaba nimanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankaasi haddaad qabataan oo ah dadkii islaamka u gargaari jiray waktigii maka la joogay yaan la laynine maxbuusnimaha lagu soo qabto kuwaasu ku jiray cabaas wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiba ina hada wallahi ma asaranii buu yihi cabaas baa dhaaranaya xadiis musnad imaamu axmed ku sugan oo axmed shaafi uu sanadkiisa saxiixinaya wuxuu yihi ilahay rasuulkiisiiyo wallahi kani wataa inaanu isoo xidhanin ninkani wadaa ima soo xidhin bu yihi ilahay rasuulkiisiiyo laqad asaranii rajulu ajlax min axsani nnaasi wajhan cala farasin ablaq ma arahu fi lqawm nin baa isoo xidhay buu leeyahay ajlaxa ay inxasara shacru can jaanib nin farxanya dhaadheer ayaa isoo qabsaday buu yihi qurux badan oo farasku wataa oo aanan ciidankaba kuma dhaxarka buu leeyahay ninkii isoo qabtay ansaarigii baa yidhi ana asartu ya rasuul allah anaa soo xidhay ilahay rasuulkiisiiyo dabeetana nebigu wuxuu ku yihi iskat war aamu buu ku yidhi faqad ayadaka allahu tacaala bimalakin kariim aamu buu ku yidhi ilaahay baa kuugu gargaaray malage waxba keligaa maad xidhanine malag baa kula socdo ilaahay kuugu gargaaro wax kuu xidhayo aamu buu ku yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam maqaazi luma wa biisnaadin xasana waxaa kusoo aroray nebigu alayhi salaatu wasalaam khafqa sidii wax yaro miyir dooloolmo kaluu yaro noqday in yar markuu cariishka ku jiray dabeetana indhaha intuu soo kala qaaday buu yidhi abshir ya ababakar
ataaka nasr llah hada jibriil mutacajil bcimama aakhidu bicinaani farasi yaqudu cala sanaya nafc ataaka nasr llahi. yani isagoo nabigu u bishaarinaya abubakar bu wuxuu ku yidhi bishaaraysa abubakar o ilaahay nasrigiisii wuu kuu yimid. waa kan jibriil oo cumaamad xidhan oo faraskiisa yani fangalka maxaa la yidhaha halkan faraska canaani lfaras tunka faraska tunka haya oo yani ciidan uu wato jibriil baa soo galay buu nabigu laha alayh salaatu wasalaam. saxiixu lbukhaarina waa ka ku sugan ba inuu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam jibriil baa yimi oo wuxuu yidhi ma tacduuna ahla badra fiikum, reer beder maxaa idinku u tirisaan, yani reer beder sidaa umalaynaysaan buu nabiga jibriil weydiiyey. dabeetana wuxuu nabigu ku yidhi afdal lmuslimuun aw kalima naxwa, yani waa muslimiinta kuwa u fadli badan ama kuwa ugu fiican oo kale weeradhaa buu ku yidhi. jibriil baa markaa wuxuu ku jawaabay wakadalika man shahida badran min almalaa'ika, reer beder malaa'igtii ahaydna waa sidoo kale waa malaa'igta kuwa u fadli badan iyaguna malaa'igtii beder ka qayb gashay. ala kuli xaal waxaynu uga jeednaa un aahaar badan oo saxiixa kusoo arortay qur'aan iyo xadiisba leh malaa'igii inay beder ka qayb gashay. laakiin haddana waxaynu leenahay ibtilaa ayaa ilaahay marinayey oo malag quriba inuu waxaan halaago waa la awoodi karaye. ibtilaa baa la marinaya in la imtixaamo safkan muslimiinta ah oo dagaal rasmiya oo aanay waxba ula hadhin ayay galeen. nimanka mushrikiinta ana ilaahay baa gacantooda makansiiyey oo waxaa lagu tilmaamaa 70 waa laga qabqabtay, 70 meelahana waa laga dilay, baaqigii hadhayna waa yaaceen. firdad ayay carareen, waliba aan midna mid kala soconin cawralayago nin waliba halkii cagihiisu gaadhsiiyaan uu markaasi isticmaalayo meeshuu gaari karo. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi beder markuu nimankii jebiyey 3 maalmood ayuu sii joogay oo fadhiyey. halkaas buu ku aasay shuhadadii muslimiinta. waxay masaajibtu qoraan 14 ibnu xajar inkasta uu laba kale ku daray saabada markuu tirinayo 14kaasi oo la yidhaahdo 6 ka midna waxay ahaayeen muhaajiriin, 8 kalena ansaar bahayn, 8dana 6 qolay ahayd, 2 qolo awsi khasraj. 14kaasa ka shahiidoobay baa la yidhahdaa. sida sunnada kusoo aroortayna iyadoo aan lana maydhin wax kalena lagu samayn lana kanfin maryahooda ay jitaan iyo sidoodii lagu xawaalay, waana shahiidka sida loo aaso. yani uma baahna salaad iyo waxba toona sidiisaa loo aasaya. maalintii 3aad markay ahayd 3 casho meeshii fadhiyey ayuu 24 ka mid ah madaxyaweyntii quraysheed baa baktigoodii lasoo ururiyey. 24 abujahl iyo umaye iyo dee wixii waaweynaa 24 sanaadiidu quraysh meeshan goobtan 70 in laga dilo 70na laga xabsiyo qura maahe waxaan la laayo waxaan la xabsiyey waa duqaydii. yani reerka cid lagagama tegin, midhmidh abu sufyaan iyo daqoladii awrta wada baxsatay un mooyaane quraysh iyo midhmidh soo raaci waayo oo abulahab oo ku hadhay maka iyo sida meeshiisaabay naftu kaga baxda oo ku dhintay. midhan caynkaasiya mooyaane odayadooda intii ugu badnayd halkan baa la dhigay. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo ururiyo ceel goofa oo beder ku yaalla buu yihi ku gura baktigoodii. ceelkaasaa lagu guray. iyadoo lagu gurayay buu intuu isdul taagay ayuu nabigu la hadlay. wuxuu ku yidhi ayusurakum anakum atactum allaha warasuula. baktigoodii buu la hadlay. wuxuu ku yidhi maanta maydin farax gelin lahaydeen inaa ilaah iyo rasuulkiisa aqbashaan. faina qad wajadna ma wacadana rabbuna xaqa fahal wajadtum ma wacada rabbukum xaqa. waar wixii waa alla ii ballan qaaday anigu waan helay oo nasri iyo guul ahayde idinka wixii alla idiin ballan qaaday guul dariya cadaab hama hesheen buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. cumar baa markaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo daqol fasbaad la hadlaysaa ee ruux ma lehe imka miya ku maqlayaan. markaasuu nabigu intuu dhaarto wuxuu yidhi waladii nafsu muxammadin biyadi ma antum biasmacu lima aqulu minkum. igama dhaga nuglidin maanta waxaan idin leeyahay sidii bay yana ii maqlayaan. waa ka saxaabiga qataada lahaa ilaahay baa usoo nooleeyey oo si tawbiiqa canaanta iyo digashada nebiga si ay u maqlaan ilaahay baa maqashiyey buu leeya way maqlayeen. yani nebigu wuxuu ku dhaartay sidaa ii maqlaysaan si leeg baa baktigooda ilaahay ii maqashiyey oo digashadayda iyo waxaan kula hadlayo way wada maqlayaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ma odhanin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kan ciidankii quraysh maxaa la yidhahdaa awrtii iyo abu sufyaan iyo intii baxsatay laga dabageeya ma odhan. waayo dee ilaahay wuxuu marka horeba u ballan qaaday maxay ixda taa'ifatayn, labada kooxood inuu koox helayo, kooxdu helayana kuwan bay noqdeen. nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalku markuu socday mushrikiinta qaar ka mida ayuu yidhi yaan la dili. koox reer banu cabdilmualib uu tilmaamay oo uu ka mid yahay alcabaas ibnu cabdilmualib. wuxuu kaloo tilmaamay abalbaktari ibnu hashaam ninkii la odhan jiray isagana. kooxdani waxaa la yidhahdaa waa kooxdii islaamka u gargaari jirtay iyagoo gaala markay joogeen makaba. waataynu soo marnayba dee cabaas oo xataa nebiga hubinaya in ansaar ka hubinayo oo islaamtay
inay madiine tegistiisa ay de ilaalinayaan oo lahaa war imika tolkiibuu la jooga ha ka kaxaynina haddaydan hadhow difaacaynin. idan isagoo mushrika xataa buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u hiilinayey. waana de hore usoo sheegnay dee reer banulmualib ama reer bani hashim oo dham inay shacab abutaalibba nebiga iyo intii muslimiinta ay la galeen oo lagu wada go'doomiyey. abalbaktari ninkan la yidhahdana waa nimankii gubay saxiifadii, waa nimankii buriyey baan ujeedaa saxiifadii heshiiskii go'doomiska nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii raacda waasl waa la go'doomiyey. 3 sannadood bay go'doon ku jireen oo aan waxna laga iibinayn waxna laga iibsanaynin, muqaafaca rasmiya lagu waday. go'doomintaa nimankii buriyey ninkan baa madaxa oo ka mid ahaa. shatinina go-aanka isku raacay hore ayuu ahaa. ninka kan markaa wuxuu nebigu yidhi haddaad qabataan isagana yaan la dilin. balbaktari ninka la idhaha ninkii qabtow yaan la dilin hala qabto un. laakiin alcabaas ibn cabdilmualib waa lasoo qabtay un. abalbaktari isaga waa la dilo lama qabanin. sababtuna waxay culamaai taarikh waxay sheegaan isaga iyo mid kaloo wada socdo uu qabtay saxaabiya dabeetana wuxuu yidhi istaaga. nebigu wuxuu igu yidhi adiga ha dilin baa laigu yidhi istaaga. markaasuu yidhi iyo saaxiibkay labadaydabadna wada magan geli ka kala cidiima amrin buu yidhi isaga madaxaan ka jaraya. dabeetana wuxuu yidhi haddaa nin weyn waa yeelaan dee saaxiibkayna hala dilaana ma yeelayo waa dagaalamayna. way dagaalameen dabeetana labadoodii baa la wada dilay. yani isagaa diiday in la qabto yidhi waa dagaalamaya. saas buu ku dhintay. mushrikiintii saas bay ku jabeen. dabeetana wixii ay haysteen oo dhanna xool ahaana waa laga furtay, waana soo baxsadeen baaqigoodii. magaaladii maka ahaydna warkii baa gaadhay. warkaasi maka waa si kayru caadiya bay u dawakeen oo ay rumaysan kari waayeen. inkastoo aan sanad saxiix aan lagu soo arorin baan rajaynayaa ibnu isxaaq wuxuu soo aroriyay haddaynu lilmacluuma isaga sheegno. waxaa la yidhahdaa nin kamid ah baa ugu soo horreeyey magaalada firdadkii soo galaya. markaasaa lagu soo ururay. waran baa la yidhi. warkii wuxuu ka bilaabun dee hebel dhimay, hebel la dhimay. odayadii unbu kii la weydiiyey ba yidhahdaa dhimay. waxaa la yidhahaa safwan ibnu umayat ibnu khalf kanaynu sheegaynay oo safwan oo meesha fadhiya isna odayada qorasheed kamid oo meel fadhiya wuxuu yidhi war nin waalan baa la hadlaysaane bal waxaad tidhahdaan safwanna ka warrama. marka wuxuu rabaa inuu yidhaha ninkeena waraysanaysan waa waalay waxba kala garan maayo, xataa aniga bay garan maayo, bal safwan ba weydiiye. safwan ka warran baa la yidhi. waa ka halkan fadhiya bu yidhi wallahi aabahayo walaalkaabaadna waa la dilay. ila waa labadii halka uu kusoo marayana baktigooda la de aabahayo walaalkaana kuwii la dilay bay kamid ahay. marka way qaadin kari weyday quraysh sidan loo galay ama sidan wax u dhinteen. war la rumaysan kari waaye buu noqday ilaa xad warar badan oo kale laga sii tilmaamo. xagga kale marka la eegana maxaabiistii iyo wixii lasoo qabqabtay oo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaabiistii wuu weydiiyey maxaan ka yaallaa buu yidhi. horta dhexda markii la soo socday 2 nin ayuu nebigu amray in la dilo. labadaa iyaga waa la dilay. nadr ibn xaaris ninkii la odhan jiray iyo cuqba ibn abi mucayd ninkii la odhan jiray labadaa waa la dilay. dhexdaa lagu dilay. iyaga waxaa loo dilayna mujrimiyo xarbi bay ahay. yani isilaaxa casriga ee xadiidka ciidanku markuu isdhiibo qolaa jirtayga maxkamad la saaro la yidhaha waa mujrimiyo xarbi oo la yidhahdo waa dembiga dagaal nimankii galay. askarta lama laayo laakiin niman madaxda ama dawladda madaxdeeda ama waxbaa la yidhaha waa mujrimiyo alxarbi oo maxakamta la saara la laaya. nimankana mujrimiyo xarbi bay yahay. cuqba ibn abi mucayd isaga waa ninkaa garanaysaan intuu soo qaado uurku jirta xoolaha nebiga madaxa ka saarayay aynu soo marray inay faatima ka rogaysay ama waxaa geysanayay. kaas nadr ibn xaarisna isna nimanka rabshada badan oo kamid ahaa. waana waxaan filayaana inuu yahay kii odhan jiray qur-aanka maxamed mid lamid aan idin akrinayo intuu meelaha sheeka xariirta akriyo. aduu dadkii sidooda u dhibta badnaa ee laga fadhiyi waaye bay ahaayeen. marka iyagu sidooday mujrimiin u ahaayeen. labadaa dhexda markii la soconayay iyaga sabran baa loo dilay. waa madaxa ka gooyaa la yidhi. maxaabiistii kale la keenay nebigu wuxuu yihi sidaan u gallaa. cumar bin khataab wuxuu yihi ilahay rasuulkiisiiyow intii in waynu dilay intan kalena waa a'imat lkufri wa sanaadiidiha. gaalada madaxii waaweynteeda intii ka hadhayna waa intan unaynu gacanta ku hayno iyana yaan xabadi ka baxsanin buu leeyahy. haddaynu rabno gaal maanta inaynu iska reebno meel aan kala marro 70 ka dabageeyo 40 quraysh kamid a hadday dhaafaan buu leeyahay waan bay leedahay xabadna yaan ka sii daynin buu cumar istaag. abibakar buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam abibakar oo ka warran. abibakar ba wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo qoladatan aan fidya ka qaadno madax furasho aan ka qaadno oo dadka muslimiinta ee halka joogaa waa baahan yihin waa kaa inaynu madax furasho un aan ka qaadno. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeeshay ra'yigii abibakar. labadaa ra'yi wuxuu qaatay kii abibakar. laakiin qur-aan baa soo degay ayidaya
ra'yiga cumar oo ilahay ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yufsida fi lard turiduna carada dunya wallahu yuridu alaakhira wallahu casiizun xakiim lawlaa kitaabu min allahi sabaqa labasakum fima akhadtum cadaabun cadiim ila qawlihi laga soo gaadhayo fakuluu mima hanimtum xalalan ayiba qur-aan la canaananayo oo ilaahay leeyahay umay cuntamaynin nebina inuu maxaabiis haysto isagoo aan iskaan samaynin isagoo aan gaalada yani jab fiican ku dhigin in maxaabiista laga hayo may ahayn inaa nimanka halkaa cumar marisaan bay ahayd badh idin ka mida xooladoona wali baa la yidhi ilahayna akhiru buu raadacaynaya dabeetana ilahay wuxuu leeyahy haddaan kitaab alle hore u mari lahayn cadaab baaba idinku haleeli laha waxa kan laakin akhiiran ilahay wuxuu leeyahy fakuluu mima hanimtum xalaalan ayiba waa loo xalaaleeyey wixii haniimo ka taaseen waa lagu canaantay waa see loo xalaaleeyey sideedabana waa khiyaarkii koowaad laakiin waagii dambe nusuustii qur-aankee soo degtay waxay culamadu leeyihiin imaamka ayaa ilaahay khiyaar u siiyey faima manan bacdu wa ima fidaa in la dili karo in la sii dayn karo in wax lagu furan karo intaba maa cada alatfaali wanisa iyaga in la dilaa marnaba ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da-deen dagaalna ku jirin ama raayana keenaynin iyo dadkaa in la laayo iyaga marnaba fi shariica gaali muslim wuxuu doonaya ahaadee in la dilaa ma banaana laakiin kuwa kale imaamka muslimka ama dawladda muslimka cidda ka talinaysa sidii ay aragta weeyaan asraarkan ama maxaabiista tan xoolihii lagu furtay way kala gedisnaayeen sida macruufka alhaytami majmac zawaaid uu kusoo aroorinayo rawahu tabrani warijaaluhu hiqaat uu leeyahay waxaa laga qaadayay 4,000 oo dirham qofkii hanti haysta dadka badhna way sii daayeen oo masalan zaynab ayaa timi wayna nebi maxamed odaygeedii abalcaas ibnu rabiic ayaa ku jira dadka maxaabiista loo qabtay dabeetana zaynab baa timi oo qilaada ama maxaa la yidhahdaa baashan luqunta lagu xidho taa luqunta lagu xidho oo uu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam wadata oo u bixinaysa fidaa inay odaygeeda ku furato dabeetana saxaabadii way ka xishoodeen baashii yaradii uu nebigu dhibaata u siiyey inay dib uga qaataan oo way kaga sii daayeen asiirkeedii maxbuuskeedii way usii daayeen oo may ka qaadanin qilaadadeediina way u daayeen asiirkiina way usii daayeen kuwa yawga laga waayey xoolo reer maka maadaamay magaalo baamushtariya caynkan ahayd waxay u badnaayeen dad badanoo wax qoraya lahaayeen waxaa la faray iyaga